wanaagsan meel kasta naga daawanaysan galabta haydii wacnaatay aan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijkeeni dalbo daawa laaba galab kasta haddana kala ka daawataan telefishinka SBS TV xaruntiisa guud ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijka alaaba waxa idin la socodsiisaan anigoo Mulkhayr Saciid Cali Mulkhayr aragsana aan soo qabta daawada u horeeyay waa inaan waxay magacaygu waa Najax Caawil oo joogta magaalada Hargeysa waxay tir waxaan dalbanay heestikiin jaamacir heestuna waa garad jacaylkayga ila daawo waa kan dalabkaagii ayaan ku leeyahay garo jacaylkan adahi galiye naftan ku gohobaysa ha ku gacan sayrin garo jacaylkan uno adahi galiye naftan ku gohobaysa ha ku gacan sayrin nafsigu magaboobo markuu ku gahadaye kaalay garabkayga gacan isihi maanta nafsigu magaboobo markuu ku gahadaye kaalay garabkayga gacan isihi gabaxsiisay goortii aynu kulanay goobtaaska sheekadadhe sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay xiisihii galay weli ma u guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji xiisihii galay weli ma u guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji garo jacaylka adahi galiye naftan ku gohobaysa ha ku gacan sayrin garo jacaylkan wiilow adahi galiye naftan ku gohobaysa ha ku gacan sayrin tahay daawadayaal haddaan heesta aadka macaanta kaga imaado aan soo qabto daawadaha xiga waxay tiri magacaygu waa Ifraax Ducaale warsame oo joogta magaalada Burco waa xaruntii gobolka soo dhaweynta waxay tiri waxaan dalbanayaa riwaayadii Boon Xirsi waa mid kamid ah riwaayadaha Boon Xirsi ila daawo ayaan ku leeyahay dalabkaagii iyo riwaayadii Boon Xirsina waa tane sida madasha daaloodee maalin joogtaba uu meey ugu door ruuxi waay soo maray ku xasuusto muuqee mar aan abaar noqon ama waliga reer mawjadiya badda iskala mudurkiisa shaqii muftidiinta heba kule maxaan laba maqaariba maalin ciido duca kaaga mariyay in lagu mashxaradii hadii mahad joogtaa mar waxaan ku leeyahay ashaqaygu waa meel waa mid qudhaho waa adi waxaadii macaan tahay sida malafka doocan haddaan adi dhammayn la ogaaye dhow dhexyaaray darada ياري دادا دعوة بقبا نمري وينود ما تبغى كله نمري هاي نمري هاي نمري الله وي لو حكون لي هادي هذا لبدينه هديبنينا ده وخروش ده هديبنيا مستعد ومر أذيقنا هديبني وأنا كل ما نما كل كل من هديبني هذا لبدينه بقى أنا هديبني هذا إيه تقاليد بقى ما يقان حاجة ثمر هذا هو صلوا يا إيه ورا ما إيه ورا ليش لكن هذا بايسو
ninka kale ku badilaya booskii galayo baas baa kula jooga isla markaana waa aniga bal u kaadidii hadaad booqan miya inaan kaa baqanin oo kugu jiri booco kugu tuuri badweynta baas baa kula jooga isla markaana waa aniga baqaninaya waxaan ku yidhi maxaad la boodboodaysaa raacayna waan ku leeyahay waa labadeena ha boodboodaa raggan dhiban bal u kaadi dhibanina waxaan ku yidhi raggan ha boodboodaan waa baxsanaynaa waan ku yidhi ayar daba sidee ay dhaqsadee ma xasuusan raggan in xoog weyn tahay maya wala diraya u kaadi adaa ku daafacaya daafacaysaa kula hada soo ugu horeey adaa ugu horeey war hadalkaaga jidhaaba weeye u kaadi jawaabteeda naho waayo horta nin kastoo jimni jaano jabiyo hoogba dhamaysto daruuraa isla joogo sheefaafteeda colaada rag umaad jabku dheero haddaad suuq ur tiraahdo jaara kaa xidhan doono wuxuu maana jaala tihiin waraaba joogay hargeyso habeenay jibcata in lafuhu jabsanayay oo la jiitay marqaanku iyo jagaa ay leedahay islaani abrahan jaadka dilaala shudhigi waaga salaada shilibkaa yara laabtay jiifsadee ku habsaamay cadceedoo joogta korkeeda indhihii jac ku siiyey dabeetana allah jirjiruu maro waaye markuu joogo biriishka shirkii mooday banaanka jabay ee kala hermay habarta dhanka jeexana waxaan ku yidhi ilaahay waa caafimaad qaba nabiga ilaahay waa adayga dhaarnaye raggan waxaan ku yidhi iga khaariji halka ku baxsan lahayd aniga in reerkeedo dhan aniga ay mooda taqaanid noocyada oo lixdan kii dhimatay ima weydiin marka dan ugu jecel anigu ma anaa ka darayde hayadeed raggan maxay doonayaan waxay doonayaan mooyidooda inay boodboodayaan ma arkayaan waxaan ku leeyahay hadii wariyay dhimanina baxsanaynaa waan halkan ka baxsan lahayd halkan aan ka marno halkan nin bukaadiga garbaad leedahay waan leeyahay waa halkan baa xubinina taantaan haye adoo soo jeesay ma ragga baa qarajinaya alla ka waad ka adagtahay baan ku yidhi waxaan ku leeyahay kaa eego buliyo waxay noo taantaan anaa joojinaya waxaan ku yidhi waa raac taxi hadda waa inagu soo gaari kama raacayna waan raacayna kama raacay okay ii khaarijka kalena haye waa tahay daawadayaal aan soo qabta daawadaha xiga magacayga waa inan wuxuu yihi magacayga waa nimcaan jaamaca waale oo jooga magaalada wajeer wuxuu waxaan dalbanayaa hees ka mid heesaha farxiyo fiske ee qaaday 2018 heestiina waa tan ila daawo ayaan ku leeyahay dalabkaaga
waa tahay daawadayaal haddaan heesta aadku macaanta kaga imaado waa tahay daawadayaal aan soo qabta daawadaha xiga wuxuu magacay waa maxamed faarax yoonis oo jooga magaalada muqdisho wuxuu waxaan dalbanayaa heesahay wada qaadaan faarax murtiili iyo aamina dhool heestiina waa tane ila daawo ayaan ku leeyahay daraartaan ku arkayba sidaa tahay dhimbil dabi jirkayga meel uga dhegto waxaan ku ahay dhangalan adiga ku ahay dhangalan runtii ku ahay dhangalan adiga ku ahay dhangalan daraartaan ku arkayba sidaa tahay dhimbil dabi jirkayga meel uga dhegto waxaan ku ahay dhangalan adiga ku ahay dhangalan runtii ku ahay dhangalan adiga ku ahay dhangalan sidii debi kada ku yaal u dhurnido u dheerida midaan ku dhiga maarag intaan dumar ruganaye midaan ku dhiga maarag intaan dumar ruganaye sidii debi gada ku yaal u dhurnido u dheerida midaan ku dhiga maarag intaan dumar ruganaye midaan ku dhiga maarag intaan dumar ruganaye macaanii dhaga nuglo dhallaan sidii xambaar ibiya igahay mushkilad dhankaagaan u soo bee macaanii dhaga nuglo dhallaan sidii xambaar ibiya igahay mushkilad dhankaagaan u soo bee daawadayaal weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni dalbo oo daawo oo galabtadan idinka imanaya magaalada Hargeysa aan soo qabta daawada xiga magacay waa Saado cilmi Sheekh Aadan oo joogta magaalada Boorama waxay tiri waxaan dalbanaya ilo qosolka waa riwaayad ilo qosolo uu jilay Cabdirashiid waa jilaaga reer Jabuuti dalabkaagiina waa kan ila daawo ayaan ku leeyahay aan soo qabta daawada xiga magacay waa Xirsi Xuseen Cabdalle oo jooga magaalada Hargeysa wuxuu waxaan dalbanaya riwaayad waa hees qaraamiya waa Axmed Mooge heestiina iyo Axmed Mooge iyo dalabkaagiina waa kuwan ila daawo
wadahay daawadayaal aan soo qabto qofka xiga waa Caaliye Naasir Muuse oo joogta magaalada Berbera waxay tiri waxaan dalbanayaa hees kamid heesaha wada qaadaan Maryam Mursal iyo Qoomaal heestuna waa aroos waa tan heestiina ila daawo ayaan ku leeyahay ومها دليو مال لغو فرحي مدنيو مروا مهركودي دعي مرحبا يوم ذك تسلهلا سعبي مشحرك ودشو أروس ومها دليو مال لغو فرحي مدنيو مروا مهركودي دعي يوم ذك تسلهلا سعبي مشحرك ودشو أروس أولاد مسؤولة مسلم أهو وكيلة محمد يروداي مرتقو مولا خيدي سيو أولاد مسؤولة مسلم أهو ديلة محمد يروداي مرتقو مولا خيدي سيو ميسان صعود موقي هنان مارين دلال رضم ذا القرحون مدحيرك يوم مانكي يمكي أقلتي سمالك محمد وكهي ميسان صعود موقي هنان مارين دلال رضم ذا القرحون مانكي يمكي أقدي سمالك محمد وكهي أولاد مسؤولة مسلم أهو ديلة محمد wad daawadayaal guntiga gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii dhawnay aan soo qabtay daawada xiga magacaygu waa Xamse Xirsi oo jooga magaalada Hargeysa waxaan dalbanayaa heestii Iskalaaji iyo Deeqa Geed heestuna waa bidhaan qurux ila daawo ayaan ku leeyahay heestii iyo dalabkaagiina waa kane oyale
dhaafshayirkan boqrado dareenku ku baahya dhammaan badankee bandhiga kalgacaylka bulshooyila hogaygu jacaylka miyuu ka boogtaa beerkaygan xasuustu miya ii ka ba'daa dartaa boqolyowga miyaan ka baxaa aabidhaan quruxowga miyaan badqabaa hogaygu jacaylka miyuu ka boogtaa beerkaygan xasuustu miya ii ka ba'daa bilaay kalgacaylka adaa budigee arbaayo dhankaaga baliinta ka dhow cashaqa bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isii bilaay kalgacaylka adaa budigee arbaayo dhankaaga baliinta ka dhow cashaqa bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isii waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntiya gabagabadii barnaamijka waan jeclaan lahaa in badanoo dalabkiina ka mid a inaa halka idinka sii daaya galabtadan laakiin waqtigii barnaamijka ku ekaayay soo gaadhay muuqaalka quruxda badan waxaa idiin soo gudbinaya waa injineer karaama barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo umulkhayr siciid cali marnaba waxaana ilaawi kareen waa agaasimaha tv-ga xamse xirsi iyo madaxa barnaamijyada maxamed ducaale cabdi barnaamij lamida maalinta beriyeenta ku kulmana waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu